بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها وكيلة قدوميها حسبية قرنكا قولها وزيرها قدوميها شركة الدهبشيل وما أنت حفلة نقول عسومي رمان مرتشرفتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي وحيلتها ما أنت هلك وحنقول إنه كهم بليينه وكل رجالينه شركات كاملة شركاتها الصومالي الآن كوا وقف عوين له أما أقول إنسان كوين وأنه هم بلييننا شركات الدهبشيل هؤلاء قرن كأسوا قبتين أحد اللي سوشيء مايو إلى هالك كسوا بالعبانتي محمد سعيد الدهبشيل هايرو قلت لي أنا شلة بيا هايد إلى بري أنا ذلك وحيو قبتي يدي هلقكي يحريه يتهلا الشيقين قبتشون والله إلى أنت أنا وأوسو تشوقني شرف يا أمناد يا أوذنمو أنت وحد مرة ذلك بدن كيسو إن أي كراسة كل مان أو هول وناكسن قرن كم صو مرة ظروف أذن أو أنت بدن قبتشون أهرها أمان وتشوقني ما تروى إلى هذه الشركة عالمية تاي هو قرن كلام كانوا واريه قليلنا قدر وان تاجريا وشيء عاقل كمشتركه أما عاقل كنعصده سما أنت مقعد له شيء وأها شركته وحوض يشان وهلا بلاري كان عصده إنه وحن قدريا لما أنت بدن شركته سوما لان ضيع أساسي أن وكيل الله هاي أو الدهبشيل يقوم ذي الدارة وماريو سوم كيبليو أي وبديهين كارك عدو كلكوا هاي سوما لان ضيع أساسي رجع أساسي إنتو ضبضني وحي هاي رجع أن إسكول جرين شام عذر كبير سيد محمد سعيد كان يقلب تاجر إلى هاي وسيء أود مسكحات ويهوش أنت عليك عالم كات تكنولوجيا وجوري أي كذا باشان وهل كسو جرا لأن يرى ما تقعد هو يسمى قضياش وجوابين رجع عبد الرشيد إليهم بارتين خصوص عطاه إلا من كاشر كذا كلنا وحين الله رجلنا إن هل كسي قادر شركة أنا النقدان هو عالم كائن كوارجني إلا إن هذا وحلا أساس بقول سنة كهر لا بقول يكون سنة كهر إلى هذه كيسير بقول سنة شركة مسعود من وجود عيننا لأن يرى أرنتها قضياش كقبل دونتنا خاصة كلا يفرق كان عسير جودها هو ما هذا دستور كانوا يحتاج السوق حرتها بين قاضني howlaha qaranka inta badan iyaga hay dhaqaalihiisa hormadkiisa meel wacan weyn soo gaarsiiyeen dalaan ictiraaf lahayn dalaan adduunka la wareegin meel badan bay soo dabaashay inaguna inta waa ku qayleynaayo maadaama dee dhaqaalihi way yihiin inta waa la rifayaa waa lagu qayleeyaa waana lagu qayli doonaado dee mar dee dhaqaalihi hayaan iguna canaanta iyo diid maayeen hawsha lagula soo eeranayo kolba shirkadana waxa insha Allah ay hore wadaan si xoojiya oo aan ku soo adkaynaynaa in shirkadaha laga helo adeeg hufan iyo macaash turaala leh hore waa wadana si xoojiyay wanaga dardaaran waxa kaloo ku dardaaraynaa in fursadaha shaqo dadku u sinaadaan in shirkaduhu waxaan ku dardaaraynaa in deemanka baanka laga qaadanayo dadku u sinaado waayo dadku hadduu sinaan waayo oo la kala dheereeyo dhibaato dhacaysa marka waxaan ku dadaalnaa horena waa ugu dadaalaysaa oo kuma dhaleelaynaa dadaal badan baa ka gasheen duruufo adag baa ku jirtaan shuruudaha ay leedahay dhaqaale waa la garanayaa iyo dhibaatooyinka haysta haddana duruufaha ku jira dadkeenu maanta shaqo la'aanta iyo faqrigu badan yahay wax badan hura oo wax badan culayso oo golaada oo dadka u sinaado marka waxa haynaysan marka shaqo yeelaysaanba waxaan uga gudbayaa duruufaha jira idinku caraaramayna in badan baa gudbad ka gashay waagii kal hore markuu koonfurku dhacay waxaan filayaa inaynaan dafiray kaalinta ay ka ciyaareen iyaga oo shirkaduhu dhammaantood ka siinaa gurmadka oo ninna aan laga baryaynin waxa uu qaranka u kuleeyay boqolkiiba boqol waa ku ammaan hawsha ka soo baxeen iyo tay abaaraha ka horreysay sanadkii hore maantana waxaan xusuusanayaa ganacsatada maantana waxa jirta labadii duruufood baa inagu soo noqday abaar kulul baa jirta boqol iyo 10,000 oo qoys in ka badan ayaa maanta dalkeena u baahan gurmad degdeg ah ma aha dhibaato ku soo socota
gurmad degdeg u baahan oo gobollada oo dhan in ka badan boqolkiiba 60 reer guraagi maanta geedibu ku jira meel walba laga hayaa waxay u baahan yihiin boqolkiiba 70 in ka badan dadka reer guraagi maanta in biyo la gaarsiiyo waayo barkadahina way qalareen ceelasha dalka ka laga dhisay ee ka dhisan ceelbiyoodka dheeri waa 388 ceel labiyo saddex mooye intii kale way shaqaynaysaa haddana boqolkiiba 70 dadka reer haraaday waayo daaqii baa dhamaaday marka dadku waxay u hayaan meel ay xoolaha daaq uga helaan oo hadii la doono xadka ka baxsan oo aan la gaarsiin karin ama meelo xagga buuraha ah oo aan hore ceelo badan uga jirin oo laasas ahaa oo yareeraaday marka shirkadaha waxaan leeyahay duruufahu maanta abaartii way adag tahay dawlad ahaan mudooyinka 45 cisho shaqaynay lacag ilaa hawl ilaa lacagtooda ku kacday $220,000 ayaan maalgelinay oo biyo gelinay 8 boodood oo bariga hore guddiga gurmadku ay bisay oo shirkadu ka mid ahaayeen oo sidoo loo dareereeyay baa hawl galay iyaga iyo kharashkoodii iyo kuwa kale doodayka loo kareeyayba waanu hawl galay 45 cisho intaba waxa dheer in gaaraysa ilaa 600 oo loo biyo oo hay'adu ku deeqeen waxaanu filaynaa sida roobkeena iyo kariisheen inay dheeraato oo ilaa 20ka bisha la yiraahdo May ay nagu gaadho markay kariishu dheeraato ilaa sanadka roobku gadaarayay inuu ilaahay baranay ilaa inta way sii kordhisaa dhibaatada weeyba ka dambeysay marka waxaan ugu baaqayaa in ganacsatada hawsha halkood kaalintoodii iyo tuka dhiiranba ay bilaabaan maanta shirkadda shidaalada ayaa waxaan tusinayaa ilaa shalay dhawaaq baa jiray qiimaha la kordhiyay waa run qiimaha shidaalku adduunka ka kordhay waliba si xawli uga kordhay laba sababood u kordhay mid waxa la weeraray Sacuudiga ceelashiisii oo ay qoladan xoutiyiintu wax weerareen taasi waxay keentay in shidaalka halka galo oo qiimihiisu kor u kaco ta kale xanuunka koofirka oo adduunka markii hore warshadaha oo dhan la xiray oo caalamka baacimiskiisu istaagay waxay noqotay markuu bixi waayay in shirkadii dib loo bilaabo hawsha la yiraahdo ha socoto ترى شدال هالكيس كعي واجرتها صدق يوم يود بيش شدال كوك عاي لكن وحلاش شركة شدالك وحنا جالسوا بجمع قارن نقول مسكين كافر كيا أبارة كتير رأي أرنتها يلا نضل قاتون دبوا ويجي صاروا دبوا ويجينا ما أنت كريتها كذا سأل نقول ما تقولوا بقولها وري باور سوا نقول كتير تاسين هو إنه حسوسي حنوك كافر كا صدق يوم يود بيش حاول يوكرني سحاوليه أيوه كرني وحلا باري بيش مارشوا برامه هورا كلا هورا إلا مانت صدق بقولي استيت لو استيت توقف على باري لابكم يستيت توقف على جهل عذرك وحكبك سدي تذكر كبك سدي وحنا قرية تلود بقول كيبا لحيو سديت تذكر أول انتهي وشري استيت مركب واحد ركيسة مركب وعذرك بدني هداتك ككعيا وكل يستيد بقولي الإيران شن يستيدنا ويكون انتهى مركب واحد ركيسة لما شدي إلهي إنه يلوسه عليه هذا هاي أفريقيا أما ذلك تقدر بدل كينا ذا وذاتك اللي هي يذاتك اللي مشاور يرتاح تام عنده معها ليس إيران المايو تام عنده معها ليس إيران المايو وايو واحد صوت الريح حنوك وصل للرقية كيو كبر عمل معها كل بمد عصوة نوع عصوة أو سيجارة وصامني بني آدم يسوي كرداية مركا كل بحنون عصوة إنه يسوي كرداية حنون سقار بعض ديالجيا وين حرست بأنه كنا سيادرتي ما أوران كنا نورش بأنه حلنا وين ما نوران كنا وين هذا بكرة ما نوران كنا لكن وحين كده دارنا إن عين قاضنا وأنو يمكن أي صوت تبريان نخاطير تي علماء عافات أفحركوا كمدي هاي فرنقوا كمدي هاي كلا دربوا كمدي هاي شرارك وحي laga maarmi kara ee daruuri ahay oo dhan in laga maarmo oo la yareeyo isdhexgalka wasaaradda caafimaadka qorshayaal bay arinta ka soo wadaa talaalkii shalay yimid waa mid caalamka oo dhan yimid talaalku waxaan u sheegayaa dadka waa ikhtiyaariye qofna la oran maayo qasab isku talaal laakiin waxa loo yahay in loo baahan yahay haddii la ilaa sabti waa la bilaabaya koow baan ka ahanayaa ana bilaabaya way ka maarmo qofkii aanu may doonayo istilaal waaye waxaan leeyahay bulshada kale afeen waa lagu rikoor gareyn hadaa cudurka qaadun baa deel laga saar bulshada waayo waxa laga hadlayaa waa 0.6
marka 2-0 dhibic lagu dhufto 6 ayaa saameyn lagu arkay waliba Yurub badan marka dadkeena waan kana waa u baahanahay iibna waa ku doonaynaa cidii kale aan dalbanin oo keentana waa ka qaadanaynaa ummadana waa ka talaalanaa kolba intaagtana waa ku dadaalayna qofka ilaanu isma talaalayo wada xorwa ma aha qasab waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad oo hambalyeynayna shirkaddan waa ducaanaynaa maxamed siciidaalku soo galay dhowr iyo 4 sanadood waa garanaynaa ilaahay waa nin uu maskax siiyey isaga rag kala ganacsatada ay hawsha inoogu qabteen ragga ka dambeeyay xilka sugayaan way ka sii qaadi doonaan dawlad ahaan sharcigeena iyo dastuurkeena soo farayo waxaanu nahay dawladdu waxay qabataa waa regulation waa sida baabuurta traafigada ah ay wadada joog hebel oo socda xaq wada ka badan kuwariin baa mishirka waa xor suuqoodu waa xor fikirkoodu waa xor annagu waxaan sameeynaa regulation ismaan walaal si loo diray traafigada soco ada dariiqa ka joog ka badan kuma galayno waa ilaa suuq xorta waana ka hor loogu maray ugu dambeyn doorashada aynu galayno oo doorasho culus ah ilaa hadda si wacan baynu soo wada qabanay ilaahay nabad qalab nagu soo gaarsiiyay doorashadii baynu galaynaa horaan uga hadlay waxaynu ku tala galaynaa 991 qof ee sharaxan 600 dheeraad kursi heli maayaan way sii og yihiin maanta tirada soo baxayso aynu garanaynaa magacooda iyo wajigooda ma naga qarsoon markuu commission ku dhamaaqo magaca hebel baa soo baxay ila waynu ognahay tirada soo baxaysay waxaynu ka dadaalaynaa qof waliba inuu dulqaad iyo dalka u turo oo xataa hadduu wax tirsan si nabadgelyo ah oo sharci ah aynu ugu doonno doorashooyin badan si la sheegay doorashooyinka dambana waxay doonaysaa inuu ka siirayno dalka monopoliga wax laga daayaa la yiri monopoligu dhinac walba uu galaa siyaasaddu waa inay xor noqotaa ganacsigu waa inuu xor noqdaa xisbiyada mucaaradka xaq bay leeyihiin waa u fasax inay nabaliiraan waa hawshay qaranka u hayaan waa inay tilmaantayada sheegaan laakiin si asluubashada shakhsiga iyo waa arrintu naga xumaanay wixii dhaliila waa ogolahay horna waa sheegay haddana waa sheegay haddii kala dhismayno haddii qofka dhaliisha way soo toosanaya anu fagaaraani haddaba in dhaliisha la ii sheego oo qaato oo dhageysto waan ogolahay bini aadam baan ahay intaas oo ummad ay karaamaysa intaas oo kala markay qaato sharciga soo saaro iyaga ay dhageysta xaq bay u leeyihiin oo soo gaaro waxay u leeyihiin anu kalabaan qalkayga awoodda ummadda loo dhiibtay ummaduna la xisaabtana ogolahay dawladdu saas ay ogoshahay ta dambana way ogolaanaysaa inuu isku qaadino waan ogolay taana aad iyo aad u mahadsantahay wassalaamu calaykum Isnigta dhashiisu qad